aniguna adiga ku jecelahay dhigarar meesha hooyadii dhigareedo dhawaa ka guuray iyo xaafadayadii la hawla wala quwwata illa billah meeshii baa tagay waxaa dhacday in maalinkii dambe wixii u yiri Soomaaliya aan aadayna wixii u yiri waa ku kaxeynaya Soomaaliya aadaya guriga carruurtii wixii soo fiir horta waa tagayaa buu igu yiri marka sax ku waa ku raacaya ayuu igu yiri tikirkii baan soo goostay waa israacnay Soomaaliya tagay Cabdiqaadir oo qof tagaya shoobir ma samaysan dharka inta aan xidhanahay mooye dhar kale ma haysto lacag ma wato asagaas daba socda ilaahu caafi war aamin dhaha waxaan u sanahay qof caadi ma qofkaas oo kale waxaa dhacday gurigiisii buu ugu dajiyay gabadh shaqaalaha guriga joogta qolkii gabadha shaqaalaha joogtay baa joodari la ii dhigay dhar anigu ma wato naagtii baa waxay ii soo saartay dirac iyo go guriga gabadha lagu qabo lagu geeyay kadibna qolkii shaqaalaha lagu seexiyay qolkii gabadha shaqaalaha joogtay baa seexda waa la geeyay markaa walaal ma ayida wado ekay والله أنا هذا السيد أنا أكيد حتى قرنا يبا أنا قبل قرح بدنا يرى صاك عدا يقول بيسي لكن هذا أنا اسمه في ريبا مو مرتي ما هو أنا لكن أنا بحكي هذا اسم الدلي أنا الظروف يترى وحصلنا بإمام مقدار يعني فرحت يدوا وضيقة أنا أسقى أركيو أنا أسقى قرح بدني هاي أنت سافر حديقة أردت waxaa dhacday sidii aan maxaan ku dhahdaay gurigii aan ku joogay markii aan 3 cisho joogay asagii gurigu joogay markii hore leelama hadlay way ii qosqoslaysay ayaa maalinka dambe uu baxay way ii yaadhay waxay igu tiri dhageyso gabadhani waxay aadaysaa safar bay aadaysaa aniguna ilmo yar baan haystaa inta aad joogtaan waxaan u baahanahay dee inaad caawisid gabadh way baxaysaa hadday baxaysaa dharkeeday diyaarsanaysaa baata qadada inaad karisid baan rabaa jikadii waatan dee gurigii sidaa ula soco inaad caawisid baan rabaa gabadhii kale lagula qabaa kula acuudu billaahi min ashaytaan hablow qadada ma u karin lahayd adeen gabadhii kale lagula qabay meerada ahayd adoo maraykanna ka yimid waa u karin lahaa baari baan ahay waa oohinta weligii uma kariyeen waa qosolka marka idin xitaa odaygu kuuma imaado kool ma jiro waxba kuuma imaadaba maxay joodar yar oo dhamaaday oo dhamaad ah oo maxaa ku dhahday ciyaalka banaanka iyo loo dhigdhigi jiray baa qolkii la ii dhex dhigay salaamu calaykum xitaa layma soo dhaho xageed joogtaa ima dhaho qolkiisaasu ku jiraa 3 casho muuna bixin intaa uusiga iyo guriga waxa la kala wado iyo waxaan ku idhi naagta mar walba iyadoo labisan bay sidaa iisoo hormartaa anigu waxaa maba kala jecel aduu odaygan isaga aragtaa ku daran beste inay odaygeeda aragtida rabto waxaa dhacday Cabdiqaadir oo in maalinkii dambe hooyaday ay soo wacday habaryartay isagii baa la soo hadashay habaryartay oo Soomaaliya joogta soo raadisay waxaa la yiri dee gabadha hadday halkaa timaaday aysan qaraabadii wixii u tagin hooyaday telefoonka kama qabto marka Cabdiqaadir waxaa dhacday horta 3 beri waa ku soo sheeka dhaafay telefoonkii aan watay aan haystay ayuu wuxuu igu yiri heblaayo telefoonkan waxaa u baahanahay inaad maxaa ku dhacday gabadhan walaalkeeda telefoonka ka soo hilmaamay telefoonkii waa soo iloobay qolkii jiifka ku soo iloobay telefoonkaaga si adiga markaad laabatid kaasaad qaadanaysaa idilay gabadhan aan qabo walaalkeed baan telefoon u soo iibin lahaa waa soo ilaabay telefoonkaaga bixi telefoonkii horta aan watay oo dhan waaba layga qaatayba wuxuu igu yiri telefoonkii waa sariirta korkeedaan kusoo iloobay wakaa adigu xagga markaad ku laabatay telefoonkaa qaado telefoonka soo dhiib telefoonkiibuu iga qaaday wiilkii dumaashigiisa ahaa buu siiyey anigii telefoon la-aan baan ahay habaryartii baa isoo raadisay maalinkii dambe way ii timaaday way ii kaxaysay waxay ku tiri habar yar gurigii xaafadii baan kusoo tusaya ina keen waxaan ku idhi
habaryar anigu kuma raacayo xaajigayga dee weydii inuu raalli ka yahay markaas wuxuu ku yiri dhaa orod raaca habaryartaa buu igu yiri waa caadi raalli baan ka ahay hablow meydka jiita meydkan maad gubaysaan mise waad shiidanaysaan waad shiidanaynaa caada oo aasina waa ohinta meydkan waa gubaynaa waa qosolka guba ku soco cabdiqaadir waxaa dhacday in habaritay ay ugu tiri naagtii tiri gabadha shaqaalaha iima joogto way baxday gabadhan way caawinaysaaye maxaan ku dhahday xaggaad u fasaxaysaa markay intaa tiri habarirtay baa maqashay marka habaryartay baa waxay ku tiri naa edab iyo akhlaaqtoona ma lehid gabadhani waa gabadh maraykan ka imaato citizen maraykana adiga siday shaqaale waad edab daranta akhlaaq marka qolkay ka leedahay aad ba u qaylinaysaa marka habaryartay baa ku qaylisay waxay igu tiri intay gacanta soo qabatay naa soo bax habarar way kaxaysay gurigeedii bay geysay anigu marka waxaan ku leeyahay habaryar waa caadi gabadha waa umul haddaan caawiyo dhib kuma jirto gabadha odaygayga xaaskiisii weeyaan caruurta hooyaanu ahaa waxaa dhacday in habaryar gurigeedii intay geysay ay isla maalinkiiba cabdiqaadirow wadaada iisoo ballamisay quraan lay saaray alxamdulilah samarada ka dhiga quraan baa lay saaray quraankii markii hal wiig laygu waday ayaa waxaa dhacday cabdiqaadir oo maalinkii dambe inaan matag iyo shuban aan ku waashay waxaan matagay timo ayaa iga soo dhacay waxaan matagay masaabiir waxaan matagay wax dee ilaahay xaalkiisa ogyahay oo madow wax aad musbaaro iyo timo iyo waxyaalo isku duubanaa matagay waxaa la ii duubay wixii markii aan quraanka lay saaray aan ku qayliyey inay islaanta hooyadii ay wax ii qabatay oo maxaan ku dhahdaayay ay waxaasoo dhan ay ka dambeysay hooyadii ayaa maxaan ku dhahdaayay markii la ii duubay waxyaalihii aan ku hadlayay ka mid ahayd anigii hal mar ayaan indhihii sida qof hurdo kasoo toosay kala qaaday waxaa dhacday maalinkii dambe isagii iyo naagtiisii wada socday inay guriga yimaadeen oo gaari saaran uu yiri waxaa u baahanay habaryar soo saar idil ha soo baxdo waan kaxaynayaa waan u baxay waxaan ku yiri walaaliga raalli noqo kuma raacayo markaa sida qof hurdo kasoo toosay baan cabdiqaadir waxaan ku yiri gabadhanina maxay ahayd markaas igu yiri gabadhan waa xaaskaagi markiiba waxaa la iiga sheekeeyey inuu ninkani xaas qabo caruur dhalay waxaan oo dhan sidaan xaaladaydu ahayd dee mama garanayaba noloshaydii baan isbedel baan dareemay alxamdulilah inaan caafimaaday waa isku ooyey inaana qof dee waxaan uu samaynayo aan waxba ka qaban karin oo waxba ka bedeli karin oo wax walba dee iska socdo aan ahaa baan yaqiinsaday salaatu shukri baa tukaday soon baa bilaabay alxamdulilah markiiba hooyada iyo walaalahay baa tigir ii soo diray waa baxay maraykanaan ku laabtay anoo u sheegin baa tigirkii goostay telefoon baa markaa tegayba qaatay shaqaan bilaabay gurigii horta aan isagii anigu deganayn maba aana tegin cabdiqaadiro guriga xaafadda hooyaday baa tegay alxamdulilah wuu soo laabtay markasta telefoonka hooyuu soo wici jirayo aaway idil aniguna waxaan ku yidhi la hadli maayo markuu soo laabtay waxaan ku yidhi waxaan u baahanaya warqadayda inaad siisid cabdiqaadir oo warqadaydii buu isiiyey wuxuu yiri naa awalba wuxuu igu yiri adaa idaba ordi jiray warqadaadii haddaawad alxamdulilah maanta i weydiisatay waa ku faraxsana marka cabdiqaadirow asagu arrinta sixirkayga waxba kamuusa ogeyn yacni inaan anigu sidan caadi ku ahay buu u malaynayay laakiin sixirkii waxaa samaysay hooyadii wuxuu igu yiri walaala waaba i dhibtay anaaba yaa allah kaa taagnaayo qaati billah kaa taagnaa haddiiba aad maanta warqadaadii i weydiisatay waa alxamdulilah wataas subxaan allah warqadaydii buu isiiyey noloshaydii baan iska watay waa shaqaystay alxamdulilah hooyada iyo reerkaygii baan la noolaa cabaar ugu dambeyntii
wiil baanu isbaranay waa isguursanay alxamdulilah nolol caadi ah oo de qof caadiya anoo ah aan galay ayaa ii bilaabatay muddo markaa joogay ilaahay fiisaan xareeyay ilaahay lagu igu irsaaqay maasha allah noloshaydii baan iska watay markii cabdiqaadir oo 2 sano kadib ayuu isoo wacay maysagii haa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هبلو ما كقبل لين تليفونك كلها يستجيب موجين هذا موجين واسهل كينا تاسم تي ام بوكاردي قال بنك بوكاردي تبع هبلو ما كقبل لين وكقبل لو هي تقولي كما قبتها وصلك كا قبتها هي نمبر Soomaaliya la iga soo wacay lambarkii baa qabtay wuxuu igu yiri heblaayo idilay salaam alaykum alaykum asalaam may garanaysaa may kuma garanayo idilay waa maxaa ku dhahday waa hebel walaalay waxa doonaya inaad cafisid dambi weyn baa kaa galay naagtii waa kala waxa ku yiri aniga maxaad waa cafis baad iga taa ku yiri laakiin dhibaatadii aad ii geysatay oo dhan anaa isu geystay waxaan adiga ku haystaba malaha cafisna waa iga tahay aawi ciyaalkaaga iyo reerkaaga wuxuu igu yiri horta walaalay cuquba igu dhacday ciyaalkii oo dhan waa iga saqiireen naagtiina waa kala tagnay wuxuu igu yiri dhibaata ay haysata iminka waxaan la ahay waxaan Soomaaliya tigraa kaga soo baxo هبلو ما ودر لين wiilkii beerku xanuuji wuxuu xaaladaha jaashax saa ugu dhacay uu iska oohi tiirka ma u dir leeyahay waa u dir loo inta wiliga uma dareemo qosolka ku soco wiil horta xaaladii waa jeexjeexday hooyaday waa geeriyootay arigii naagtii ilmihii oo dhan waa iga saqiireen naagtiina waa kala tagnay walaalay maanta waxaan hayo wixii ganacsi aan bilaabay naagtii lacagtii iyo gurigii iyo waxyaalihii oo dhan ayadaa ku qoray wixii oo dhan igala wareegtay anigii meel cidla ah baa ku soo dhacay maanta ilmana iima hayso hantidii yarayda aan shaqaystana igala wareegtay wax allaala waxaan sameeyay maqaarmaanta tigir la-aan baan u joogaa Soomaaliya walaal waxaan doonayaa inaad tigidhka waa $200 tigidhka inaad iga soo bixisid inaan si life ku hor imaado cafiska dalbadaan rabaa waxaan ku yidhi walaalo cafisna kaama rabo anigu waa ku cafiyey adigana waxba kuuma haysto tigidhna anigu maxaa ku dhahay naag marwaa oo meel qabo guri joogto guri fadhido ilmo yar haysataan ahay kuumana awoodo lambarkayga amaanaysiiyo nabadgeli فريد سمرة كدية وفريد بين قطع سحر كي كبح هاي guys subscribe كنا لما قف عشان تبغون نقدر من إنه صار ضد بدون كده عن أركايا إنه صار كسر waxaa dhacday sidii baan ku yidhi walaal amaanaysi telefoonkii igu yaqaanay oo dhan maadaama dee aan sixir iyo dhibaato badan aan kala soo kulmay waxaan go'aansaday inuu lambarku iga soo wacaba iska tuuro telefoonkii baan iska bedelay waa ka xidhay cabdiqaadir oo maasha allah hadda waxaa ii joogta 5 caruura alxamdulilah noloshaydu way isugu kay aadan tahay qisadeydana waxaa idinla wadaagay qisada xanuun kale in maxaa ku dhahdaayay dee kolley aad la isku ilaaliyo qof walba qisaa soo martay gabadhaas waxay tiri waxaan jeclaystay inaa idinla wadaaga qisada xanuunka badan ee soo martay inkastoo caawa si aan u xanuunsano wax badan aan kala ilaaway qaybo badan waxaan ka raali gelinayaa inaad taasna wixii aan ka tegay baan ka raali gelinayaa cabdiqaadir oo aad u idin salaamaya dhammaantiin tiibadkaate إنك إذا حنوسنا سينو شيء hablaha kale oo dhan